qodobada ku saabsan isbeddelka deegaanka Soomaalida ka dhacay iyo go'aanka ONLF ay xabadii ku joojiyeen waan idiin soo gudbin doonaa hase yeeshee waxaan ku hormarayaa Muqdisho dekada weyn ee magaalada Muqdisho oo ah isha dhaqaale ugu weyn dalka ayaa la furay in xilliga habeenkii ay shaqeyso waxaana dekada oo maalintii oo kaliya shaqeyn jirtay hadda ay dawladdu ku guuleysatay in xilliga habeenkii la ogolaado in badeecada laga soo dejiyo lagana dhoofiyo haddii loo baahdo waxaana socday muddooyin ku dambeeyay kulamo arintaasi la xiriira sidii loo fuudeyn lahaa arrimahan iyadoo caqabadaha jira ay ka mid ahaayeen gaadiidka xamuulka oo isu socodkii magaalada adkeeyay xilliga maalintii si loo helo nidaam ay gaadiidkaasi magaalada ku maraan xilliyada habeenkii waxyaabaha muhiimka ee ganacsiga la xiriirana isu socodkooda loo fuudeeyo ayay dawladdu xoogga saartay sidii dekada Muqdisho loo furi lahaa ama loo gaarsiin lahaa heer ay xilliga habeenkii shaqeyn karto wasiirka wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda waxa ay suudiyahay la fadhiya Maryan Aweys xildhibaan Maryan Aweys Maryan ku soo dhaweynaya marka hore inta kadib bal waxaad faahfaahin naga siisaa maxaa hortaagnaa markii hore in dekadu ay shaqeyso xilli habeena maxay tahay baahida dhabta ee hadda soo dadejisay arrintan bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa waxaan ka mahad celinayaa inaan ka mid noqdo caawa barnaamijka dabagalka wararka ee Universal TV haddii aan u soo dhaadhaco su'aasha aad i weydiisay sida aan hore u sheegnay warbixino badanna aan hore u bixinay waxaan ummadda Soomaaliyeed aan u xaqiijinay in dekada Muqdisho ay shaqeynaysay habeen iyo maalin laakiin ay ka maqnayd halkii badeecadaha in habeenkii ay gaadiidka waaweyn ay daabulaan waxay markaa wasaaradda iyo guud ahaan dowladda Soomaaliyeed oo hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xukuumadda uu hogaaminayo Mudan Xasan Cali Kheyre iyo guud ahaanba xukuumadda ay ku dadaaleen in xoogga la saaro in laga miro dhaliyo dekada Muqdisho in ay habeen iyo maalin ay shaqeyso sidoo kalena ay shixnadaha ka soo degaya xilli habeen la qaadi karo taasoo aan u aragnay inay fududeyn doonto zaxmadda faraha badan gaadiidka waaweyn ay sameeyaan maalinimada marka ay wadooyinka ay marayaan marka taasi laguma koobin kaliya gaadiidka waaweyn iyo wadooyinka laakiin waxaa meesha ku jirta dhinaca kobaca dhaqaalaha dalka oo runtii aan u arkayno in ay meeshaasi ay kasoo bixi karto kobac dhaqaale oo Soomaali ay ku gaari karto isku filnaan sidoo kale in la abuuro shaqooyin dheeraada oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay kaga faa'iideystaan marka runtii waxaan xoogga saarnay arintaas inay suuro gasho annagoo markaa adeegsanayna laamaha kala duwan ee amniga dalka oo runtii aad inooga caawiyay in ay hirgeliyaan gobolka Banaadir iyaga naftirkooda iyagana inay door muhiim ka ciyaaraan in ay muujiyaan doorkooda ku aadan diyaarinta wadooyinka gaadiidka waaweyn ay mari lahaayeen iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed in arintaas aad iyo aad ay runtii ugu riyaaqeen marka waxaan isleenahay waa tallaabo runtii ay dawladda hore u qaaday rajaynaynana in meelaha kale aan ka hirgelin haddii Ilaahay yiraahdo laakiin tallaabada ugu weyn waa dhiirigelinta iyo xoojinta dakhliga dalka iyo horumarkeeda iyo in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed aan ognahay in ay runtii ay door wanaagsan ciyaari doonaan wasiir Maryan waxaad ogtahay amni darrida waa cabsida ugu weyn ama dhibaatada ugu weyn ama caqabada ugu weyn ee haysata Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho dekaduna waa isha dhaqaale ee dalka ugu weyn iyo guud ahaan nolosha bulshada Soomaaliyeed maxaa tillaabooyin dheeraad ah oo amniga la xiriira oo aad qaadeen ilaa ay hadda noo sheegi kartaan runtii dadaalka faraha badan aan sameeyno waxaa ka mid ahaa inaan xaqiijino hantida ganacsatada Soomaaliyeed meesha laga dejinayo ama dekada ku soo degaysa in si amni ah loo gaarsiiyo meesha ay ku socdaan ama ha noqoto suuqa bakaaraha ama meelaha kale oo ay gaarsiiyaan badeecadaha ka soo degaya dekada taasna runtii saan horeba u sheegay
waxaa nagala shaqaynayo laamaha amniga oo runtii tan iyo waqtigii aan bilownay ama aan ka fikirnay in dekada 24 saac ay shaqayso na garab taagnaa ilaa ay haddana runtii doorkooda muujin doona oo runtii xaqiijin doona badeecadaha ka soo degaya dekadaha ama ka soo baxaya dekadaha la gaarsiiyo si amnina loo gaarsiiyo meelaha ay ku socdaan. marka waa dadaallo aan wadno oo runtii aan xaqiijinay. waxaad arkaysay furitaanka xilligii furitaanka inayna garab taagnaayeen ciidamada laamaha kala duwan ayagoo markaasi muujinayay doorka laga rabo oo ah in la hubiyo gaadiidka soo galaya dekada ama ka baxaya iyo sidoo kale marka la qaadayo badeecadaha inay ciidamada amniga ay garab istaagi doonaan ilaa laga gaarsiiyo meesha ay u socdaan. waxaad ogtahay dekada waxaa maamusha shirkadda Albayrak ee Turkiga laga leeyahay. qorshooyinkii heshiiskii ay kula wareegeystaan waxaa ka mid ahaa in la sameeyo horumarinta dekada oo dekadii la ballaariyo. haddii dekada muqdishona la doonayay in dowladdu ay dhaqaale xoog la ka hesho oo howlaha guud ahaan dalka ay ku maamusho, dabcan lama huraayo in la helo hanaan dekadii lagu hormariyo. tillaabooyinkii lagu hormarinayay dekada muqdisho halkay idin marayaan? waxaan ka hadalnay hadda ka hor in heshiiska dowladda ay la gashay shirkadda maamusha dekada Albayrak in dib u eegis lagu sameeyo. dekada Albayrak shirkadda Albayrak waxay dekada maamuleysay ku dhawaad 4 sano. heshiiskana runtii waa naga horeeyay oo xukuumad naga horeysay yaa heshiiskaasi gashay. laakiin si aan markaa u wanaajino howlaha aan uga baahannahay shirkadda Albayrak in ay ka fuliso dekada waxaa lagama maarmaan noqotay inaan heshiiska aan dib u eegis ku sameyno, taasoo runtii tallaabooyinkeeda wejigeedii hore haddaba ay bilaabatay. runtiina aan joogno meel fiican aan runtii aan uga wada hadli karno qaabka aan uga horumarin lahayn meesha maanta aan joogno. marka waan rajaynaynaa in mustaqbalka iyo waqtiga dhowba in runtii ay ka soo bixi doonaan waxyaabo lagu farxi karo ummadda Soomaaliyeedna horumar gaarsiin kara. farqiga dekada in ay maalintii shaqayn jirtay iyo hadda oo lagu daray xilliga habeenkii muxuu noqon doonaa? markii hore dekada waxay ka shaqayn jirtay xilliyada habeenkii in ay soo dejiso badeecadaha saaran markabka. haddase waxaa dhici doonta in gawaarida waaweyn ay rari karaan alaabtii ay gaarsiin karaan suuqyada ama baqaarada loogu talagalay. taasina runtii ay noo furaysaa wadadii aan uga faa'iideysan lahayn fursadaha dhinaca kobaca dhaqaalaha. waxaa runtii shaqayn doona xilliyadaas aan soo sheegnay customkii oo diyaar u noqon doona ururintii cashuuraha. Albayrak oo iyadana ah shirkadii maamuleysay dekada in ay dakhligii iyo wixii looga baahnaa dejinta in iyadana ay ururiso. marka halkaas waxaad ka dareemi kartaa ganacsatadii intay maalin soo dejiyaan badeecado maalintii xigtana qaadayay in ay fursad u heli karaan inay habeenkii ay ka faa'iideystaan waqti dheeraada oo howshooda loogu qabanayo. intaasina ay diyaar u noqon doonaan laamihii ku shaqada lahaa ama ururintii canshuuraha ha noqoto ama dhinacii amniga iyo wasaaradda guud ahaanba inay garab istaagto ganacsatada Soomaaliyeed inay u fuliso adeega ay uga baahan tahay. waxaad ogtahay in xilliyada habeenkii markii ama gelinka dambe markii gabaldhici la gaaro in suuqyada waaweyn la xiro iyo goobaha badeecooyinka la geeyo intaba wadooyinka qaarna ay suuragal tahay inaanay macquul ahayn xilliyada qaar habeenkii in la isticmaalo. marka haddii ay caqabadahaasi weli jiraan culayskii weli ma taagna oo sidii loo baahnaa loogama faa'iideysanayo ma dhihi karno xilligan habeenkii ay dekadu shaqaynayso? sida aan kuu sheegay hay-ado badan oo dowladda ka tirsan ayaa hawshaan isgarab wada oo ka wada shaqaynaya oo gobolkii ay ka mid yihiin, amniga ay ka mid yihiin iyo dhammaan ganacsatadii Soomaaliyeed. marka waa hawl wada jira oo aan u baahannahay in ay sida aan ugu talagalnay ay u socoto dhinaca caqabadahana aan ka ilaalino. marka waxaan ku dadaalaynaa in aan arrimahaasi aad sheegtay inaysan dhicin intii karaankeena aan ku dadaalno sidii markaa loo badbaadin lahaa hantida shacabka Soomaaliyeed ee laga soo saarayo dekada ama soo galayo
in markaa si amni ah oo caqabad markaa ku imaan karin in markaa loogu adeego insha allah. xaruntii wasaaradda gaadiidka ayay wasaaraddiina dulsaar ku ahayd ma samaysateen dhismihii wasaaraddan oo ma dhisteen xarunteeda? waxaan u malaynayaa in shacabka Soomaaliyeed ay dhowr jeer ka fiirsadeen meediyaha in wasaaraddii dekedaha oo markii hore burburtay hadda dhismo lagu celiyo dib u dhis lagu sameynayo oo mar dhowna aan rajaynayna in gabagabo ay noqon doonto lasoo gabagabayn doono. waxaan runtii hadda dulsaaran ku nahay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada oo runtii dulqaad badan noo muujiyay inaan xafiisyadoodii ama wasaaraddii aan wada isticmaalno oo ka wada shaqeyno. laakiin insha allah mustaqbalka dhow waxaan rajaynaynaa in wasaaradda dekedaha ay yeelan doonto saldhig ay leedahay ay ku shaqeyso insha allah. xildhibaanad Maryan Aweys wasiirka wasaaradda gaadiidka waa wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda oo barnaamijka dabagalka caawa igala qayb galaysay. barnaamijka dabagalka aad weli daawanaysaan. isbeddel ayaa lagu sameeyey hogaankii xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia waxaana la doortay gudoomiye xisbigaasi uu yeesho iyadoo horey uu gudoomiye ugu ahaa madaxweynihii hore ee dowladdeegaanka Soomaalida Ethiopia mudane Cabdi Maxamuud Cumar. Axmed Shide oo ah wasiirka isgaarsiinta iyo warfaafinta ee dowladda Ethiopia ayaana loo magacaabay xilkaasi. waxaa Axmed uu yahay shakhsi aad ugu dhow ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyada oo la saadaalinayay maalmihii u dambeeyay in isbeddel ka dhaca deegaanka Soomaalida Axmed uu hogaankiisa ka mid noqon doono. si aan faahfaahin arrimahaasi ku saabsan u helno ayaan telefoonka jigjiga kula xiriiray Khadar Cabdi Ismaaciil oo ah madaxa xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia. waxaa su'aashii ugu horreysay ee aan weydiiyay ay ahayd bal inuu inoo sharaxo sida uu isbeddelkan u dhacay. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. muddooyinkii ugu dambeeyey ama labada cishe ugu dambeysay waxaad ogsoontihiin in shir golaha dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalidu uu ku jiray. shirkaas oo ah ama waxaad ogsoontihiin sidii dhibaatooyinkii ugu dambeeyey ee deegaankeena ka dhacayay barihii ugu dambeysay. guddiga fulinta ee xisbiga dimuqraadiga shacabka golaha dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida ayaa ku mashquulsanaa xaaladaas sidii loogu bixi lahaa isla markaana xisbigu uu ka qaadan lahaa doorkiisii hogaamineed. marka shir waqtiga aan ku jirnay maalmahanba ayaa waxa aan ku dooranay maanta gudoomiyihii xisbiga oo marnaa booskaasoo marnaa inaan buuxino kaasoon isla markaa u dooranay mudane Axmed Shide Maxamed oo ah wasiirka communicationka federaalka. Axmed Shide sida la ogsoon yahay waa xubin in badan ama 20 sano ugu dambeeyay dimuqraadiga shacabka ee Soomaalida Ethiopia kaasoo isla markaana buuxin kara ama karti u leh inuu xisbigan sii hogaamiyo. waxaad ogtaa Khadar in horaantii bishan aad golaha dhexe ay magacaabeen madaxweyne oo Axmed Cabdi Maxamed loo magacaabay. warar soo baxayna waxay sheegayeen in federaalka ay saluugsan yihiin magacaabista. iyada xaggee ku dambeysay magacaabistii madaxweynihii dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia? aad iyo aad baad u mahadsan tahay. sida aad u sheegtay horaantii bishan waxaanu dooranay madaxweyne cusub kaasoo aan u dooranay mudane Axmed. taas wax kulley xaggan federaalka oo dhib ka jiray haddana ma jiraan. isla markaa hadda lafteeda isaga unbaa ah madaxweynihii. taas waa sidaas taa in loo ogaado ayaa muhiima. hadda waxa soo kordho kaliya waxa weeyaan boobkii gudoomiyaha xisbiga oo banaana kiina sidii aan hore ku sheegay waxaan u dooranay mudane Axmed Shide Maxamed. intaa loo ogaado ka loo fahmaya muhiima. xaggee doorashadan ka dhacday waxaana loo sheegay in golaha dhexe ay Addis Ababa tageen oo looga yeeray ma shirarka iyo go'aamadan ma Addis Ababa ayay ka soo baxeen goluhuna halkaa miyay ku sugan yihiin? sida la ogsoon yahay xaaladii magaaladii Jigjiga ee golaha dhexe ku shiri lahaayeen sida ay ahayd waan ogsoonnahay. nabadgelyo daraa jirtay, khilaafaad baa jiray.
markaas ma jirin marxalad uu golaha dhexe ku shiro ama go-aanadan uu ku gaadho sidaa darteed golaha dhexe wuxuu doortay ina uu tago ama uu codsaday ama uu isku codeeyeyba ama uu go-aansaday inaad saaba shirku ka dhaco si loo jawi degan isla markaana loo falanqeeyo dhibaatooyinkii loona buuxiyo boosaska bannaan ma garatay awoodda guddoomiyaha xisbiga maxay noqonaysaa wasiirkiisa ma sii ahaana dowladda federaalka Ahmed Shide awoodda guddoomiyaha xisbigu waa sida xeer hoosaadka xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ku xusan awoodda xisbiga iyo awoodda guddoomiyuhu waa sidii uu hogaamin lahaa xisbiga taalafteeda hadda waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaaho in aan kala saarno xisbigii iyo xukuumaddii qorshayaasha noo dhiman baan haddii ilaahay yidhaaho ku eegi doonaa marka awoodda xisbi guddoomiyuhu waxa weeyaan hogaamintii nidaamku kolley xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan wixii dowladda hogaaminayana waa xisbigii un waxa dowladda dhistayna waa xisbigii un taasi marka kama dhigna in dhib kale ama uu jiro ama si gaara uu jire wixii maadaama ay isku mid yihiin qorshayaashii iyo hagiskii mar walbaba waxaa lahaa xisbiga taasay noqon doontaa haddii ilaahay yidhaaho waayo ugu dambeyntii waxaa soo baxayay in Ahmed Shide uu noqon doono madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya arrinta maxaad nooga sheegi kartaa arrintaas waxba kama jiraan baan ku leeyahay Ahmed Shide wuxuu sii ahaan doonaa wasiirkiisii heer federaal madaxweynuhuna waa Ahmed labada Ahmed yaan la isku qaldin madaxweynuhuna waa sidii kii hore aan u dooranay Ahmed Shide haddii ilaahay yidhaaho waa guddoomiye xisbiga oo kolley dabaashii kama marno xisbi ahaan iyo nidaamkii xisbiga unbaa lagu shaqaynayaa kama dhigna markaasi inuu isuna si gaara uu yahay ama madaxweynuhuna uu si gaara yahay laba jeerada iyadoo la isku duuban baa la wada shaqaynayaa qorshayaasha la isla qaadan haddii dhibaatooyinka annaga noogu muhiimsanaa dhibaatooyinkii iyo nabadgelyo daradii almaha lagu jiray sidii aan uga bixi lahayn iyo dhibaatooyinku say ku dhaceen waxyaalaha aan ku mashquulsanayna inta badan xoogga saarayna kuwaasaa ka mid a kaasi wuxuu ahaa Khadar Cabdi Ismaaciil madaxa xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo telefoonka jigjiga iigu warramayay ururka ONLF ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inay xabadii joojiyeen oo xabad joojin rasmi ah ay maanta ku dhawaaqeen waxaana xabad joojintu ay bilaabanaysay maanta saacadu markii ay ahayd 12 duhurnimo go'aankan waxaa magaalada Nairobi kaga dhawaaqay afayeenka ururkaasi Cadaani Hirmooge waxa uu sheegay in arrintaasi ay jawaab u tahay go'aankii dowladda federaalka Itoobiya ay liiska argagixisada kaga saartay ururkaasi waxa uu sidoo kale sheegay inay bilaaban doonaan wada hadallo isla markaana ay tagi doonaan Addis Ababa iyo deegaanka Soomaalida ee Itoobiya bismillaahir rahmaanir rahiim sidaan bayaanka jabhadda ku cadaynayba maanta oo bishu ay tahay 12 saacada geeska Afrika markay tahay 12 duhurnimo jabhadda wadani xiriirta ogaadeen waxay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca taasoo aanu u qaadanay markii dawladda Itoobiya ay ku dhawaaqday inay joojisay cunaqabatayntii dhankeeda ahayd iyo wixii loogu yeedhay xeerarka argagixisada iyo la dagaalanka khaaska ku ahaa dadka Soomaalida iyo jabhadda wadani xiriirta ogaadeen markay laashay wuxuu ka dhignay xabad joojin annana maanta waxaan ku dhawaaqnay dhinacanaga xabad joojin waxaanan u diri doonaa wafti aada magaalada Addis Ababa oo ogaadeeniyana taga si xaaladda qalafsan ee hadda jirta ay u degto oo aan uga qayb qaadano dejinta xaaladda guud oo nolosha dadweynuhu ay sii adkaanayso khatar iyo cabsina ay jirto isku dhacyo inayna imanin sidaa daraaddeed baa waftiga loo diray xabad joojintana waxay xiriir la leedahay tallaabooyinkii ay qaaday hadda ka hor dowladda Itoobiya ay ku muujinaysay inayna culaad u haynin halganka Soomaalida ogaadeenaya iyo shacbiga Soomaaliyeed jawaabtii dhankanaga ahayd weeye sidaas ayaan maanta jabhadda ku dhawaaqday intaasaan jeclaysan in la wadaago saxaafadda dadweynaha
waxaa ku soo beegay wadahadaladii rasmiga ahaa ee jowxo iyo dowladda Ethiopia inay mar dhow bilowdaan baa la filayaa xaaladda gobolka inay marxaladan inaan ka qayb qaadano dejinta iyo kahortagga muxuu ahaayey inuu jawigu sii xumaado si aan wafdi u diro si aan xaaladda u dejinno si aan dadkanaga muxuu ahaayey dareenkiisa u jihayno xaaladana dhanka dejinta iyo nabadgelyada ay ugu jihaysato xilli saasaan ugu soo beegnay marxaladan inay ku habboontaan u aragnay annagu waxaan qabnaa horta in jawiga la dejiyo xaaladdu hadda qof iyo laba iyo kuma saabsana xaalad guud oo kale istaagaa jooga عداني هرموغي أفاينكا جبهة ONLF أيو كاسي أها أو نيروبي كل هاللي ورباهين تمانتا كنا دواقع حبد دوجين رسمية أو لنعودة دولة إثيوبيا قوانكا إيانا ما آني كجوابين gudahaan daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkii dabagalka wararka caawa waxaa farsamadiga caawiya Cabdirasaaq Maxamuud Jaamac iyo Maxamuud Mukhtaar Cabdulle tan intaan barnaamijkan mid la mid kulmi doono waa anigu Cabdullaahi Axmed Nuur oo idin kaga tagay sidaas iyo nabadgelyo